رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo dalka Itoobiya uga qayb galay shir madaxeedka 29aad ee Midowga Afrika oo sanadkan diiradda lagu saaray horumarinta dhalinyarada Afrika iyo sidii dib u habayn loogu sameyn lahaa ururka Midowga Afrika ayaa dib ugu soo laabtay dalka isagoo kulmo muhiim ah kula soo qaatay magaalada Addis Ababa madax kala duwan oo ka socota caalamka koorinta uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ka soo dhoofin Itoobiya ayaa si weyn loogu soo sagootiyay magaalada Addis Ababa iyadoo ay ka qayb qaadanayeen sagootintiisa kooxaha hidaha iyo dhaqanka iyo ciidan loo diyaariyay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdullaahi Cismaan ayaa sheegay in safarka ra'iisul wasaaruhu ku soo dhamaaday guul laakiin waxa anaga loo daba yaalay shirka guud ahaan wixii ka qabsoomay meeshaas in shirar laba geesood ah oo dawlado kala duwan madaxdii ka socotay ama madaxweynayaal ama ra'iisul wasaarayaal ama wasiirada arrimaha dibadda ay matalayeen in aan gooni ula fariisanay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga intiisa kale oo ay kamid ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo nagu helay socdaalka madaxda la hadlay iyo dawladaha is aragnay waxa kamid ah dawladaha dariska oo dhan dawladda Kenya dawladda Ethiopia martida loo ahaa iyo dawladda Djibouti waxa kamid ah dawlado kale oo gobollo kale oo qaaradda kamid ah ka tirsan madaxweynaha Rwanda kamid ah waxa kamid ah wafdi ka socday dalka Cameroon waxa kamid ah wafdi ka socday dalka Seychelles waxa kamid ah wafdi ka socday dalka Mauritius wadamadaas oo mid walba waxa naga khuseeyay markaas aan kala hadlaynay isku soo qaadnay qaarkood waxaan kala hadalnay xagga amniga iyo sida la isaga kaashan lahaa oo kuwa dalalka dariska ah oo ciidamadooda wadanka ay joogaan wadamo kale waxaan ka wada hadalnay arrimo maxaabiista sida Mauritius iyo Seychelles maxaabiista Soomaalida halkaas oo tagi doono oo aan hadii Ilaahay soo boqon doono maxaabiista dawladdaasna kala soo xaajoon doono sidii loo sii deyn lahaa maxaabiistaas xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre iyo xildhibaan Faysal Cabdulla Guuleed oo kamid ah xildhibaano ka tirsan labada aqal oo ra'iisul wasaaraha ku heliyay safarka Itoobiya ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay wada shaqaynta wanaagsan ee xukuumaddu la leedahay baarlamaanka aan uga mahad celinayno dadaalka ay xukuumaddu wado Khayre tan labaad oo anagu aan daba joognay waxay ahayd maxaabiis siideyntoodiina la soo dhameeyay ayna hadda diyaaradii xukuumadda Soomaaliya ay u diyaarinayso soo qaadi lahayd intaba runtii guuleed inaan ka qayb galno aadaan ugu faraxsanahay in xukuumaddu muxuu ahaa naga talagelisay naguna marti qaaday inaan goobjoog u ahaana shaqooyinka badan ay qabtaan qaar kamida runtii wax wanaagsan waa dhaqan wanaagsan waan ku amaanaynaa xukuumadda iyo dhammaan kulamadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya kula soo qaatay magaalada Addis Ababa madaxdii kala duwaneed ee ka socotay caalamka ayaa muujinaysay in caalamku Soomaaliya u arko mid hayso wadada saxda ahayd oo dib loogu soo celinayo karaamada iyo sharafta uu adduunka ku lahaa dalkeenu Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.